tababarkani oo muddo 4 cisho ah ka soconaya magaalooyinka Hargeysa iyo Balli-Gubadle ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxaana tababarkani uu ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waxa ka faa'iideystay 40 qof oo isugu jira rag iyo haween sidoo kalena waxa tababarkani soo qaban qaabiyay iskana kaashanayay dalada haweenka ee Nagaad iyo hay'adda TETH ugu horreynna waxa ka hadashay tababarkaasi Khadrar Nuux Ismaaciil madaxa mashaariicda horumarinta ee haweenka ee Nagaad ahaan haddii alla nafta inagu simo muddadii 4 cisho ahayd ee tababarkani socday waxaynu qaadanay oo aynu isla soo eegnay qodobo iyo eriyooyin aynu niri waxay kor u qaadayaan caafimaadka hooyada iyo dhallaanka halkan waxaynu u fadhinay inaynu dhammaanteen ka qayb qaadano kor u qaadida caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaynu halkan isugu nimid halkan Nuuray waxaa jooga 2 xaafadood oo magaalada Hargeysa ah xaafadii Daami iyo xaafadii Digaale labada xaafadood mid walba waxa ka socda 10 xubnood oo aad u qaali ah oo 4 cishaanu halka joognay ka baranay waxyaabo fara badan nagu soo kordhiyay waxyaabo fara badan isweydaarsanay sidii aynu dhammaanteen inagoo gacmaha is haysana wixii aynu hayno aynu dadkeena uga faa'iideyno aynu ku gaarsiino fariinta wacyigelinta ah Nagaad ahaan waxa naga go'an inaanu qayb kasta oo hooyada iyo dhallaanka noloshooda wixii aanu ka qaban karno aanu ka qabano oo ugu muhiimsan tahay tan caafimaadka dhallaanka iyo hooyadu hooyo caafimaad qabta hadaynu helno iyo ilmo caafimaad qaba bulsho caafimaad qabta dhinacoodana waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadkii tababarka ka faa'iideystay waxaan u mahadcelinayaa ururka Nagaad iyo hay'adda TETH maanta markaa waxay noo wadeen caafimaadka oo ay lambarkow ka tahay hooyada uurka leh ilmaha dhallaanka sidii isna uu caafimaad u heli lahaa daryeel u heli lahaa tababarkaasina siinayeen waxaan leeyahay way ku mahadsan yihiin annaguna si fiican baan u qaadanay sidii aan u qaadanay bulshada insha Allah bilmillaah kariim waan kula noqon doonaa waananu gaarsiin doonaa haddii aan hooyada iyo dhallaanka la ilaalin hooyada qoys caafimaad heli mayno qoys caafimaad qaba heli mayno bulsho caafimaad qabta markaas saasaanu maxay kula noqon doonaa xaafadii iyo bulshadii maxay wacyigelinta ballaaran ee caafimaadka bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa ayaan Khadar Maxamed waxaan ahay tababarayaasha maanta halkan lagu tababaray tababarkana qaadanaya muddo 4 cisho waxaan oo qabanayay tababarka 2 hay'adood oo iskaashanaya midna ay Nagaad tahay ta kalena ay TETH tahay waxa kale oo caawinaya ama la socday wasaaradda caafimaadka oo ay ka socotay Aamina waxaan ka faa'iidnay ama aanu ka baranay waxyaabo badan oo aanan hore u aqoon ahna wacyigelinta hooyada iyo dhallaanka maadaama aanu baranay anagu wacyigelintan waxay socon doontaa muddo kooban aniga shakhsi ahaanteydana iguma koobnaan doonto inaan muddada koobnaan ka shaqeeye waxaan ku talagali doonaa amaba aan rajaynaya in aan bulshadayda wacyigelinta maanta la baray inta aan noolahay amaba aan jooga deegaankan haddii aan ka taga xataa aan meesha kale aan tago inaan u qaban doono wacyigelintan una sii wadi doono Nuura Caydiid madaxa hay'adda TETH ayaa iyaduna ka hadashay tababarkani ay iska kaashanayeen hay'adda Nagaad waxaana ay sheegtay in tababarkani uu faa'iido weyn u yeelan doono bulshada idin kala soo qayb galay maanta xiritaankii tababarkii 4 maalmood inoo socday lagu xoojinayay wacyigelinta hooyada iyo dhallaanka ku nool 2 xaafadood ee Digaale iyo Daami hay'addan TETHna waxa ay ka shaqeysaa oo shaqadooda ugu weyn ay tahay inay tayeyso tababarada shaqaalaha caafimaadka ee ku nool wadamada soo koraya waxa kale isaguna tababarkani ka hadlay tababare Abwaankeysa Xasan Gaboobe waxana uu sheegay in tababarada noocan oo kala ay bulshada caafimaadkooda gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka ay wax badan ka bedeli doonaan barnaamijkan hadda aynu wadno ama aynu bilaabayno run ahaantii waxa waa daryeelka hooyada iyo dhallaanka waxa iska kaashanaya 2 hay'adood waa hay'adda Nagaad
iyo hay'adda TET la yidhaah programkan wuxuu ku wajahan yahay 40 qof oo 4 degmo ka soo kala jeeda ama 4 muxuu ahaa magaalo waxaa ka mid ah Balligubadle oo aynu maanta joogno waxaa ka mid ah Hargeysa oo 2 xaafadood ah Digaale iyo Daami iyo magaalada Wajaale ayuu programkan ka soconayaa waxa kale oo barnaamijkan ka mid noqon doona oo la taabari doona 40 dumara ama kulli ragna ku jiraan oo loo bixin doono marwo caafimaad ragana mudane caafimaad baa loo bixin doona waxa aynu ku wajahanahay sidii loo badbaadin lahaa ama loo daryeeli lahaa hooyada uurka leh iyo ilmaha yar dhinaceedana waxaa halkaasi ka hadashay Aamina Sheekh Xasan Maxamuud oo ku hadlaysay afka wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaana hadalladeedii ka mid ahaa halkan waxa iska kaashaday tababarkan muddo 4 cisho ah socday nagaad iyo TET marka halkan waxa lagu tababariyay dadkan waxa la dhahaa community-ga oo loo tababariyay inay ka soo xidhaan xanaanooyinka iyagoo ka soo xidhaya dadka xanuunsanaya siiba hooyada iyo dhallaanka halkan maanta waxa ku soo gabagaboobaya maalintii u dambeysay oo ah maanta 4 cisho maanta u dambaysa degmada Balligubadle Siciid Aadan Jaamac Television Cable Hargeysa